baashu waxay ka mid tahay dhulka la isku itixaamo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay waxay tilmaamaysaa marka uu qofka la dhiga xabaasha ee laga dareero inay laba malag u yimaadaan laba malag oo aragtidooda ay aragti adag tahay aragti baqa gelinaysa hadalkoodu yahay nahar iyo dagaal oo intay soo fadhiisiyaan axaadiista qaarkoodna ay ku tilmaamayaan inay laba madmadow oo buluuya aswadaani azraqaan buu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiista qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan munkar iyo nakiir in la yidhaahdo labadaas malag intay soo fadhiisiyaan qofka inay odhan doonaan man rabbuk maa diinuk man nebiyuk waryaa kuu rabbiya diintaaduse maxay ahayd nebigaase waa kuma qofkii alla sugaya subxaanahu wa tacaala markaas allahayna sugaye wuxuu odhan doonaa rabbigay waa alle subxaanahu wa tacaala diintayna waa islaam nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waa nebigii rasuulkaan rumaysnaa qofkii munaafiq iyo gaalina inuu waxba garan waayi doono oo ay markaasi habaari doonaan waana sababtay ku fasiraan culammadu aayadda qur-aan ilaahay leeyahy yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka mu'minkaa wuxuu ku sugayaa alqowl athaabit fi lxayaati addunya wa fi alaakhira aakhiriya adduunba yacni waxay culammadu ku tafsiiraan inay tahay marka xabaasha la dhigo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baqa gelin kari maayaan malaa'igta tan adag ee wax dagaalayaaye waxa ay ku hadlayaan ilaahay baa ku sugaya weedhii saxa ahayd oo inuu garto in rabbina alle u yahay islaamkuna diintiisii tahay nebi moxamedna rasuulku rumaysnaa inuu yahay calayhi salaatu wasalaam markaasaa samada laga dhawaaqaya la odhanaya an sadaqa cabdi run buu sheegay addoonkaygii kii kale ee gaalkaana haah laa adri ilaa ay ka yidhaahdaan malaa'igtu laa darayta walaa talawt waxba garan maayo buu odhan doonaa waa yacni waxba wuu garan waayi doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka inaga dhowro oo qabriga kuwa sugma alle subxaanahu wa tacaala inuu inaga yeelo